reer bani israa'iil baa ka mid ah 40 sannadood waxay cunayeen almanna wasalwa xeeb cunto bini aadan cuno oo dhan ay ku dhan tahay baa samada uga imanaysay bilaa tacab nabi ciise calayhi salaam qoomkiisii waa kuwii ku yidhi waid qaala alxawaariyuuna yaa ciisa bna maryam hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min alsamaa qaala ittaquu allaha in kuntum muuminiin qaaluu nuriidu an naakula minha وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وحيد هذا ما كريسا إن أذكر ربك أنه ويديسن وصمد الله نوغا كان ما ركتانا حب ناسو أي كنت نرتاي عنتدي بني هذا نبهنا يعنيي مركاسو كيري إلهي كيابا هذا الإيمان الذي هذا الكهكوها لنا إلهي كبقى مركاسي هذا نريد أن نأكل منها وحنكو ديننا وحكلا ما هي وحرمنا inaan cibaadada aan u banbaxno oon xeedhana cuntada aan ka cunno qalbiga iyo iimaankuna noogu xasilo noogu ziyaado inaad run noo sheegayso oo risaaladaadu ay xaq tahayna aan garanno waa mucjizo weeyaan oo kugu sii sadaqno ya maragna aan ka noqono inaad tahay nebi la soo diray oo warka uu sheegayo uu yahay war saxa adna ilaahay buu baryay markaas 3 maalmood buu soomay baa la yidhi mixraabka ayuu galay mixraabka ilaahay buu baryay sidoo uu alla baryay baa la yidhi garkiisii baa laabtiisa ku dhigay baa nabi ciise calayhi salaam maalintii afraad markuu reer bani israa'iil iskugu yeedhay ayuu ilaahay baryay xeedh ayaa samada laga soo dejiyey bayna khamaamatayn laba daruurood dhexdooda taalla oo mara cadna maaragtaane mandiil masar mara cadna la duldhigay ayaa samada ka soo degtay kullamaa uu nebi ciise uu duceeyo ooyaba way soo dhowaataa leanna hortiisii baa ilaahay dhigay markaasuu nebi ciise calayhi salaam wuxuu ka qaaday markaa maradii buu ka qaaday cuntadii bini aadan uu cunayay oo dhan ayaa halkaa ku dhammaystiran waxba kama maqna baa la yidhi markaasuu ku yidhi haya kulu kaalaya cuna buu ku yidhi waa kane laa na'kulu bay ku yidhahdeen xataa ta'kula cuni mayna ilaa aduu aad ka cuntid mooyaane markaa buu yidhi anigu ma dalbin anu waan garanayo waan yaqiinsanahay ilaahay inuu iquudinayo inuu ilaahay siduu doono bini aadanka uu ku quudin karaa waan yaqiinsano waan ku kalsoonahay nebinimadeedana anu waan isku kalsoonahay diintanan inila imadana xaq inay tahayna waan ku kalsoonahay ininkaa iga dalbay mucjizadaase oo ininkaan aniguna inii dalbee kaalaya cuna buu ku yidhi markaasay yidhaahdeen cuni mayno waa ka baqeen bale way cabsadeen waa xeedh intay la eg tahay maaha intan waxay la eg tahay markii keliyaba baa la yidhi hee 7,000 oo qof baa hareeraha intay ka fadhiisato birraaxa waliba ay u fadhiistaan intay cunaan bay ka kacayeen baa la yidhi 7,000 oo qof هذا مركز سؤال هذا إنكم عني ويدين أقلدين كن نقضه قف قال لي قف يندق جرنا يحنونه هي سوق حي بكل ذاتك حنون سروح والله قضى يا بوقت هي كيف يكبقين لكن كل حنون سنابه ويرين بريهم دبا مركي جماعات أي دعوته أي زيادة إلهي عمل كي ودقاجية يا درك ساني ما كان عصتها مد باكو كان يمد قربها كسو كولادي مد خاد كي كولادي مش غلعانتي كولادي مركز ورب كان كحي مركز ما حد راعي ويدي أنا مشغول باني سجى كحي أسوها كاجي سداس وكلام ما إذا النبي عيسى عليه السلام dadkii caafimaadka qaba way ka baqeen markii la yiri warbalku inaga buka un keen hadana nin walba uu lordo uu keenay baa la yiri dadna markaas nabi ciise alayhi salaam dadkii meesha la isku keenay baa la yiri qof walba waxa la yiri kii bukay markuu cuntadii uu ka badan meeshii uu ka bukay baa ilaahay caafimaad ka siiyay kii indhaha lahaa indhihii baa u furmay kii dhagaha lahaa dhagihii baa u furmay kii maaragtaan lugiga gacan waqtiga gacantii lugtiba u dhaqaaqday kii walla maskaxdiba u soo noqoto u fayubaaday markay arkeen aayadaas ay yiraahdeen haddaan cunaynaa markaasuu nabi ciise ku yiri shuruud baad ku cunaysaa shuruudaas waa maxay calooshiinu intay qaadi karto baad cunaysaan wax ziyaada ku gurimaysaan shardiga labaad waxa weeyaan weelal iyo kiishashitood hoosta ku soo qaadataan cuntada guranimaysaan oo xagga dambe dhiganimaysaan haddii aad khiyaanada la timaadaan taynigu dhacdo waad ka sheekayn doontaa buu ku yiri bani aadam baa laga karis daba maris kiishash bay soo qaateen baa la yidhi
واسكا ايغانو نبي عيسى وي كو غوران markiiba waxa la waxay xeedu cajiib ku ahayd 7,000 oo qof baa markiiba dul fadhiisanaysi way ka kacaan azumad markii lagu yeero ee aqalka dadka lagu azumaday uu yar yaraado qaar baa meel la fadhiisiyaa Soomaa wala shaqaladii hore ay ku cuntay ma la dul fadhiisan mise laga rafici ya wax laga qaadi wala cusub baa loogu keenay waxa la xeedan laga ma qaadayn inta kuwani kolkay kuwani ka kacaan inta ay sii jeedaan ee kuwa kale ay soo badilayaan ayaa Ilaahay sideedii ku soo celiyaa illa aayad waxaniye lagama bataaban bay ku hortoodba way cunaan dadna markay qishkiya khiyaanadii ma bini aadam baa deynaya khiyaano iyo qish ay bilaabeen عقوبة كل عذاب لا يدو إلهي وحكد داير يا خنازير بإلهي كدقي مركا إلهي أرزاق قد مركا من السين يوم قناع سكني إلهي نكوكو أرزاقها مودي لأقو سبب بدن بإلهي كوكو أرزاق كرام قرآن كا إلهي كوكو أرزاق كرام قال يربى إلهي كوكو أرزاق كرام تلقفات السبع إلهي كوكو أرزاق كرام دعاء إلهي بردب إلهي باهد هذا كو دبولي كرام إحسان ورالك عدو سميسيبا إلهي باهي بدن عديك كوكو دبولي كرا مركا كسبغا حلاشا سيدي سينا نغشا غيسنا والدين وعبادتنا إن أمريسو دينتنا إن أمريسا وإلهي عز وجل أيا قرآن كي نغو أمرو يري هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا رزقه رزقين معها رزقي 70 إنسان رزق محل إرادة ووحا حل كان لما ريع عوشا اللي قليل إلى رزق waxa adiga ku soo galay baa waa dakhli weyn waa dakhli waa wixii ku soo galay weeyaan laakiin arsaaqad waxa la yiraahdaa baa la yiri waa waxa bini aadanka hungurigiisa mari calooshiisa gaadha dakhliga waxa laga yaabaa ka gaariga ku masaxaya kula leh ka kabaha ku baalasheynaya kula leh waashmaanka aqalka ku ilaalinaya kula leh ka neefka baadiyaha ka soo qaadaya ee xerada keenaya xoolihiisi adiga u haya shaaqiyada guriga kaaga shaqeynaysa jaariyada lacagteedii adiga u haya waayo بني آدم كأنت على أكون موضة فران كرام مركا أديك أفوري وحي ودنو أدا أوضة حيا أدو حسلين أنك بالقبين كهابانا هاي باتروغا مليونير كها لكن وحال لغا يابا اللباب بقولو كنو قف إنا حلوه إلهي أديك كوكو ديبادو إلهي نيسي تعبون بادتك ديرتا راحة ما ديري انت ما ديري دادك بالقبين دا يدادك فقرات متكين عنت عمبدا markay cunto cun badan fadiirka wax walba iska cunayso corona waaga dhawta adduunka la sheegayo dadka ugu cabsi badan ay haayeen laba qolada kursi ku fadhida madaxda iyo qolada lacag yar haystay koodkooda wax ugu jiraan labada qolo cabsoonaysa ilaa imika waa fiirsado masaajida labada qolo ay ku tukadaan meelaha qaar kood afka la xiran yahay faqiirka gidaarka jiifa muxuu ka biiqbal sheeg ma corona ka biiqay wala corona ka baqa wala daacun bu ka baqa wala xabad bu ka baqa ورانيجي بابا قاس داعي بكل هذا الكورونا هنعني بكورونا بابا مركا إلها يا بيود نسقى بني هذا ككلف بلا وجابه هذا تعب كيف أكو صار عن عصره ذاتك الحولو كيف أدوا يسوي حساب صادو وكحسابني أنا العقد قصي صادو مركا وين أتفهمتها ورأرزاق بني الله يبقى قيبيه إن الكسب حلالك الشقيسان والدين تيدا يفرس وعباده كو إن الأمة دو أذيقا ولي بوغا شقينا وين أترابو marka arsaaqada ilaahay baa bixiyo kow aaminsanow maharadan waa sababtii kaliya oo ummaddan wax ku taraya reerahayga iyo ehelkayga oo nabigu wakiilaha masaarifta reerkaaga aad siinayso kolay noqotana buu nabigu yiri ajar iyo sadaqa lagaaga qora saddexda markuu kasbigu yeesho cibaado noqon halal waa inuu haado madmadu ku jirin kasbiga dhexdiisa ilaahay waa in lagu caasin وضاعد إلهينا اللقو جبن لاب صدح كالصوني ذا دوين الدكان كان هانين وانو قلبك وكنت تعلق صلاة إلهي ننقنع الصداء يا بدا عدي أصور تيب الله شيغول ليلي مركب كي بدا عدو أيكو صار نيد دقي مركز الحمد لله تضوع شكدي بالويري مركب كاقي ما هين markabkaagi dekadu soo galo galabtu soo galaya markaasuu alxamdulillah markaas lagu yiri labada alxamdulillah ee tiri bal noo macne
maalintii hore la ii sheegay layidhi masiiba ku dhacday xoolahaagii oo markabkaagii uu degay qalbigaygaan fiiriyey buuri qalbigayga wax isbeddela kuma dhicin buuri qalbiga aanan isbeddelin baan ilaahay ugu mahadiyey buuri waxaan arkay buuri qalbigayga oo aan ku tacalluqsanayn badaacaddayda iyo xoolahaygee waxaan arkay qalbigayga oo ku tacalluqsan ilaahay oo qalbiga yaqiintii iyo kalsoonidii ku jirtay baa markiiba ila hadasho igu tidhi awalwalin ilaahay baad haysataaye marka qalbiga saliimka ayaan ilaahay ugu mahadiyey buuri hadda markaad ii sheegteenna ilaahay baan ugu mahadiyo dee ilaaha nicmo xoolahayga ii soo badbaadiyey baa ayaan ugu mahadinayaa buuri nicmadda ii keenay marka muuminku waa caynka ah waxaanaad haysato yuunan qalbigaagu ku tacalluqmine waa inaad qalbigaagu ku tacalluqmaa mar walba ilaahay xaggiisa ta kale nebigeennu sal alla alay wasalam 3 jeer buu nebigu dhaartay 3 laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim buu nebigu yidhi 3 jeer sal alla alay wasalam 3 jeer buu nebigu dhaartay 3 jeer uu yidhi ilaahay baan ku dhaartee 3 ilaahay qiyaamaha la hadli maayo buu nebigu yidhi il naxariislana ilaahay wuxuu yidhi ku eegi maayo dembina laga qaadi maayo dembina laga dhaafi maayo walahum cadaabun aliimun baa nebigu yidhi weliba kuwaasi hee cadaab daran bay leeyihiin buu nebigu yidhi cadaab daran bay leeyihiin 3 jeer ma nebigu 3 jeer ilaahay ku dhaartuu sidaa ku celiyey abu dar alkhifaari ayaa yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuula allah kuwaasi way hoogeen way khasaareen nebi allow ayay yihiin markaa buu nebigu yidhi almusbilu waa ninka maradiisa kibir iyo khuyala iyo xarago daraaddeed qur-aanta u dhaafiya ee kibir darteed marada qur-aanta u dhaafiya mid waa kaasuu nebigu yidhi lianna kibriga ayaa iska leh alkibriyaau lilah alcizu izaari walkibriyaau ridaa'i ciziguna baa ilaahay yidhi waa go-aygii waa guntigaygii walkibriyaau ridaa'i kibirkuna waa go-aygii baa ilaahay yidhi labadaa ninka igula dooda baa ilaahay yidhi waan cadaabi baa ilaahay yidhi marka ninka kibir daraaddeed maradiisa qur-aanta u dhaafiya dariiqa ku xaragooda kaasi waa musbil buu nebigu yidhi kuwa ilaahay aan eegayn buu ka mid yahay iyo almannaan ninka dadka u gallad sheegta gallad sheegte hadduu ixsaan sameeyey qofka ku yidhahda ha dhowtoola warniyow anuu anigii sooniga ixsaanka caynkaa ku sameeyey maa maadii ilowday warniyow anigoo maalintan anigii badeecadda ku sii siiyey maadii ilowday war maalintii kaa fadhida aniga aniguba wax kuu fiiqay maadii ilowday war soonigii markaad magaalada soo gasha anigu ku gacan qabtay maa maadii ilowday bal fiirso qaarna wayba ka dardaraanoo waxay idhahdaan kan anaa qof ka dhigay buu yidhi mid hadalladeenna de sooma kan anaa qof ka dhigay buu yidhi qof wahaabaad moodi hee anaa qof ka dhigay mid kale ka sii daro wuxuu yidhi anaa sameeyey buu yidhi kan oo dhagaxda u sameeyey indhahada u fiiqay laa ilaaha ila allah ixsaan ummadda u samee markaad qofka walaalkaa muslimka aad wax tarayso badiil isaga ha ka suginba inuu abaal kuu soo celiya ha ka sugin marka horaad wax u qabanaysa baa lagaa yidhiba laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukura ku shaqee waxbaad daymisay ilaahay dartii u daymi waxbaad u sii hormarisay ilaahay dartii ugu sii hormari maalin baad wax la qabatay ilaahay dartii wax ula qabo ergaad u noqoto meel baad ka ergaysay ilaahay dartii ugu erge ninka wanaagii nii sameeyey buu nebigu yidhi waxaad ugu abaal celisaan maxay jazaaka allaha khayr jazaaka allah khayr maxaa ka weyn markaas adu waxbaad siisay ka soo qaad 1 shilin baad siisay kunkiibuu maalin kale ku siiyey waxa ka fadli badan kunka markaad siinaysay inaad u siiso ilaahay dartii ood ku tiraahdo hadhow isaguna uu kugu duceeyo ood ka doonto inuu ku yidhaahdo jazaaka allaha khayr limaada laanna abaalka ilaahay uu ku siinayo ayaa ka qiimo badan badiilkan isagu kuu soo celinayo marka taabuu nebigu nala rabaa markaaba tan lagaaga digoo lagaa yidhi gallad sheegtay ha noqon waayo gallad sheegtay waa ilaahay yamunnuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunnu calaykum an hadaakum liliimaan gallad sheegtay waa ilaahay ilahay unbaa ku gallad sheegan karaa ilaahay unbaa addoonka ku yidhaahda anaa ku abuuray anaa ku arsaaqay anaa aragga ku siiyey anaa maqalka ku siiyey anaa awlaadda kugu deeqay
wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum ilahay baa qur-aanka ku sheegay khalaqa lakum ma fi lardi jamiican sakhara lakum ma fi samaa bashar baa tahay adigu walaalkaa markaad wax u qabanayso abaal ina isaga uu kuu celiya ha ka sugin taasi waa dhaqanka dadka kale ay leeyihiin baa layidhi gaalada taa ku waa mucaamalada gaalada taas waxbaan kuu qabtay wax ii qabo waxbaan kuu idhaa wax ii dheh waan kuu ergeeye ii ergee waan ku amaahiye ii amaahi way garab joogsan waan ku garab joogsane may muslimku caynkaa maaha muslimku waxa weeyaan marka walaalkii aan wax u qabanayaba kaan wax ka sugayaa isaga maaha waa ilaahay baan anu wax ka sugayaa yaa wax ka sugaya ilaahay marka mannaan lama ogolo inaad noqoto ka saddexaad buu nebigu yidhi waa kii almunfiqu silcatahu bilxalifi alkaadibi buu nebigu yidhi waa ninka badeecadda uu iibinayo dhaar beena ku iibiyey buu rasuulku yidhi koorhkan imaad saa siinaysaa $13 waxiga dhan wallaahi aniga $9 buu iigu jooga $10 buu iigu joogaayo $2 baan dul dhigtay wallaahi maxaa keenay meesha marka waxa uu sheegayana waa been dhaarna uu ku daray welibana tijaaradaadii intaabaaba kharribaysayba ugu mucaamalada xun eed ku dartay baa xalaashaadii kharribaysa marka waa inaad noqotaa qof badeecaddu iibinayo run ku iibinaya war waxaan soo siistay iska daa maxaman ugu sheegba war aniga intaaba iigu joogtaa intaabana siinaya adeer intaana waan kaa siin karaa haddaan ku cajabin waayana ardullaahi waasica weeyaan hor u soco suuqu u buuxaaye hadduu qofku badeecaddu iibinayo uu been ku iibiyo waxaa marka dambe keeni doonta ma taqaanaa inuu marka dambe uu ku dhaco uu noqdo qof xaasida oo walaalkiisa dariskiisa dukaankiisa dariska inuu waxba la ogolaani waayaba